Ethiopia marka laga hadlayo arrimaha ka dhaxeeya 16 kan qodob ama communique-gan waa ay ka balaarin waana ka cumq weyn tahay taariikhda Ethiopia laakiin haddii si kale hadii loo dhigo maanta waxaa muuqanaysa macnaha ra'iisul wasaaraha Ethiopia in loo soo dhaweeyay sida asagoo ka yimaada meel kale ama wadan kale ka yimid oo aan ba ahayn nimankii diriskiina ahaa jiro Ethiopia aan hajiran aan hayna kala loo soo dhaweeyay oo waxaa naga muuqanaya maanta Ethiopia jacayl iyo in aan isku dhiignahay inaan walaalanahay inaan isku dhaqannahay iyo marxabees iyo howlo fara badan oo mataqaanaa u baahan in wax la iska weydiiyo ayaa maanta naga muuqanayay ma jirin maanta wixii dhacay marka waa wax oo ka soo jeeda wax ka soo horjeeda waaye annaga iyo Ethiopia wixii naga dhaxayn jiray dabcan waa la sheego madaxweynuhuna waa sheegay wasaaruna waa sheego waxaa la yiraahdaa mataqaanaa maanta jabtar cusub aan furayna hada dhax laakiin su'aashu waxay tahay jabtar cusub taariikh soo socota kun sanadood jabtar cusub ma lagu furi karaa maanta I think 2 saacadood baan u maleeyaa intuu jooga malaha ninka hadii la isku dardaro wixii oo dhan waxaan qaysaa 3 saacadood jooga meel kale oo hadda aadin jabtarkaas cusub aan rabnaa inaan wax ka ogaano jabtar cusub waliba Rajaar Abi Ahmed ku sheegay in jabtar cusub inta ku qoriyay jabtarka cusub waxa waaye Soomaali Ethiopia inay wadaagaan dhiig inay wadaagaan qiyam inay wadaagaan taariikh inay wadaagaan haddii oo aniga Ethiopia ay fududahay in la dhaho Soomaali iyo Ethiopia ayaa dhiig iyo qiyam iyo taariikh iyo culture wadaaga haddii hal mar inta la dhaho sax dadka Soomaali ku qaadanayaan ay ku aqbalayaan oo wixii noo soo sheegi jiro iskuulada noogula soo dhigi jiray inta cirada naga soo bixaysay oo dhan iskuulada wixii noo soo sheegay wixii aan bari jiro oo dhan galigoodaba maanta badda lagu shubay marka in taariikh cusub ay bilaabato wixii horena laga gudbo oo hadda waxa ka sheekeynaysa soo wax wanaagsan ma marka waxa ma yahay malaha jiilka soo socda lagu talagalay aniga iyo kuwa iga horeeyay iyo kuwa ilamida kulli in la geliyo oo na dhaho aniga ay Soomaali iyo Axmaara dhiig ka dhaxeeya in la geliyo oo saas aan ku liqno waxoogaa way cuslaan doontaa si kastaba ahaato laakiin waxa ka muuqata in mujaamalo siyaasadeed ay tahay oo nuxurku u yahay in labada dawlad iskaashi ay sameeyaan taas wadamadu marka ay heshiinayaan waxyaabaha oo heshiiska lagu dhiso waxa kamid ah koow marka hore in aad loo dirso waxyaabaha dhoo psychology labada shacbi waxay kala dareemayaan taariikhda wixii oo sources oo mataqaana of interstate conflict wixii marka hore isku diri jiray marka taariikhdana heshiisku mudin anaga Ethiopia psychology-gana wili kama aanan heshiin waxyaabihii oo anaga iyo Soomaali Ethiopia isku diri jireen lama xalin lagamana xalin korka ayaa gacanta laga mariyay haba la siiyay waa la soo marxabeeyay jacayl fara badan iyo loo faan muujinay marka uma malaynayo in wixii anaga Ethiopia naga dhaxay jiray in sidaan fudud ay ku dhamaan doonaan uma malaynayo waa gartay ra'iisul wasaarahan markuu xafiiska yimid Ethiopia dhaqdhaqaaqyadooda iyo booqashooyin uu ku maray dawladaha gobolka Masar oo tagay Suudaan oo tagay Kenya Uganda Djibouti inta badan heshiisyada uu galayay arrimaha dekedaha xooga lagu saaray marka anaga faafahinta hoose intaan u imaan booqashooyinkaas uu ku tagay dawladaha gobolka teeni maanta maxay kaga duwan anaga wadamadaas waxay kaga duwan tahay kuwa horta wadamada diriska la ah oo sida Djibouti iyo Suudaan iyo Ethiopia Suudaan iyo Kenya iyo Ethiopia muranka ka dhaxeeyo anaga naga dhaxeey kama dhaxeeyo waa gartay nabarka labaad waxay tahay marka laga reebo Masar oo biyaha webiga Niil oo muran oo kala dhaxeeyo mahane anaga iyo Ethiopia waa ka duwanahay wadamadaas xaalkeen waa ka duwan yahay waxa kale tan ugu duwanahay wadamadaas waa wadamo hadda ay dawladda ka jiraan oo ugu yaraan xuduudooda waardiista waa laakiin anagu waxaan nahay wadan oo free for all oo macnaha wadan oo dawladda anaga ma lihin wadan albaabkiisa oo furan yahay nahay wadamadaas waa wadamo kari kare inay dawlad ahaan ula macaamiltamaan laakiin anagu ma lihin wadan oo hadda dawlad Soomaaliyeed oo dawladda Ethiopia maanta hor fadhiisato oo la macaamisha ma jirto waa jirta maalin aan la macaamil karin Ethiopia laakiin maalinkaas waa deerdareen toddobaadii markaan u dilayna taangiyaasha iyo wiilasheed markaan u dilayna markaasay ahayd inaan luqadan iyo hadalkan maanta aan ku hadlayno inaan ku hadalna ay ahayd oo aan aqli iyo wacyi iyo conscious aan leenahay hadda laakiin waxaan taaganahay gadaal ka helna Soomaaliya hadda laakiin waxaan taaganahay markii aan talahayn markii aan tabarhayna talama hayn maanta aan talahayna tabar ma hayo marka macnaha waxay ka dhigantaa macnaha maanta waxaan qiranaynaa macnaha oo aan taariikhda ku qiranaynaa macnaha Ethiopia raalaha naga ahaato oo libaaxow waa idinka garda raajirnay that's just we are going to
submission what they call the submission marka waxay noogu imaadeen markii inaan anaga raaligelina noogu marka waxay noogu yimaadeen inay naga xaqiijiyaan inaan soo caqliyeysano oo aan aqbalnay inaan nahay defeated inaan anaga gardarayn in aan anaga nagula impose gareeyo hadda waxa ka dambeeya their own diplomatic and strategic planning waa gartay marka